السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا برنامجك يترسيغا كان الساقا عصب oo ku saabsan duridda la durayo bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan cariga Mareykanka ama dalka Mareykanka oo dadka qaarkood shakhsiyaad gaar oo caama oo aad wada garanaysaan ay ku tilmaameen in bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka ku nool ay yihiin bulsho aan wali isu arkin inay yihiin Mareykan. Oraahdaas iyada ah waxaa beenaynaya oo qiimaheeda tiraya in la sameeyo isbarbardhig u dhaxeeya bulshada Soomaaliyeed iyo bulshada xabashida ama guud ahaan Itoobiyaanka, iyadoo la ogsan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay dalka Mareykanka soo gashay wixii laga bilaabo dagaalkii sokeeye ee Soomaaliyeed 1991 iyo wixii ka dambeeyay, balse arrinkaas isaga marka loo barbar dhigo bulshada Itoobiyaanka guud ahaan la oran karo inay raad dheer ku leeyihiin dalka Mareykanka oo soo galeen laga bilaabo bartamihii 70-yadii qarnigii 20aad oo xilliga joogistooda ee ku sugnaayeen dalka Mareykanka uu yahay mid aad u dheer marka Soomaalida loo barbar dhigo. balse barbardhiggaas isaga ah marka la sii wado oo loo fiirsado ama la milicsado labada bulsho yaa Mareykan la qabsaday oo integration la sameeyey oo muujiyey inay yihiin bulsho ka mida bulsho weynta Mareykanka. runtii waxaa la oran karaa iyadoo arrinkaas la taaban karo inuu jiro dhanka bulshada Soomaaliyeed oo ah bulsho ka mid noqotay bulshada Mareykanka. tusmooyinka iyo calaamadaha arrinkaas isaga ana lagu taaban karo ay ka mid tahay in bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb gashay oo xubin ka tahay firfircoon deegaamada ay ku nool yihiin isteediyada ay kaga nool yihiin dalka Mareykanka laga bilaabo labada isteed ay ugu badan yihiin oo tiro mugle weyn ku leeyihiin oo ah State of Minnesota iyo State Ohio. labada state iyo isteediyo kale oo kala duwan ay degaan ku leeyihiin tiraday ku joogaanba ha noqotee, balse ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed iyo bulsho iyo dhaqaale iyagoo xubno ka ah guddiyada deegaanka, magaalooyinka iyo tuulooyinka ay kaga nool yihiin gobolladaas ay deegaanka u leeyihiin. tiradooduna hadba xilliga ka dambeeya ay sii kordhayso, balse marka loo fiirsado bulshada Itoobiyaanka la taaban karo inuu arrinkaas isaga aanu saameyn, iyagoo sidan tilmaamay joogay ilaa bartamihii 70-yadii qarnigii 20aad, balse ilaa maanta aan la taaban karin, aanna la tabi karin saameyntooda ay nolosha siyaasadeed ee Mareykan ku leeyihiin. xitaa marka laga soo qaado deegaanka ugu weyn
ay ku sugan yihiin oo ah Washington DC oo caasimadii oo ay ku joogaan tiro ka badan 100,000 oo qof balse haddana lagu tilmaami karo bulsho had iyo jeer daba fadhiisata siyaasiyiinta Maraykanka ee qalaad balse aan marnaba ku fakerin isku dayin ku dhacin inay iyagu raad siyaasadeed halkaas ay ku badan yihiin ay ka geystaan iyagoo ah dadyow dhaqaale kula mug leh Washington DC arrinkaasuna uu muujinayo guud ahaan barbardhigga labada society marka la isu barbardhigo in bulshada Soomaaliyeed ay tahay bulshada macnihii ka mid noqotay bulshaweynta Maraykanka oo integration ka samaysay iyadoo isla mar ahaantaasna ah bulsho ka diin duwan ka dhaqan duwan haddana awooday inay muujiso wada noolaansho iyo ka qaybgal guud ahaan nolosha Maraykanka hadday noqoto mid siyaasadeed mid dhaqaale mid arrimo bulsho waaqacaas isaga ah iyo muuqaalkaas isaga ana uu muujinayo oraahda ah ee boynowday in bulshada Soomaaliyeed aanay la qabsan karin nolosha Maraykanka iyo bulshada Maraykanka waa anigoo ah Khalid Xasan Yuusuf intaan ku kulmi doono barnaamij kale iga guddooma salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh